السلام عليكم وإذن سلامة ولا خالقة كسو دوادا مخالكنا مانتا وحارجينا إناد عافمات قبتان الحمد لله نغن وان عافمات خوا مخالكنا مانتا وحان إذن لوداقي دونا سدح نوع او دادك كمدا وليغاها إلابن سدح نوع او دادك كمدا وغورين صاحب إنتا أنكولو وداقين سدح دان قضب وحان كاعوسانا يا إناد نغو عابسو سبسكرايب لايك سيدو كلنا aragtidaada aad commentiga inoo wadaagto waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan haddeerna waxaad ku soo dhawaataan saddex qodobood ama saddex nooc oo dadka ka mid ah saddexda nooc oo dadka ka mid ah weligaa ha ilaabin qodobkeena ugu horeeya ama nambarka koowaad kuwa ku caabiyey waqtiyada adkaa weligaa ha ilaabin qofku caabiyey waqtiyada adag ee ku garab istaagay ee ku muujiyey walaaltinimo iyo saaxiibtinimo kuna siiyey ixtiraam tixgelin farxad kala gacayl iyo wax walba oo wanaagsan weligaa ha iloobin qofka ku wanaajiyey qodobkeena labaad waxa uu leeyahay weligaa ha ilaabin kuwa kaaga tagay waqtiyada adag ha ilaabin dadka kaaga tagay waqtiyada adag maxaa yeelay kuwaasi ma lahan wax faa'iido ah waxay kaa tageen xilliga aad ugu baahi badnayd caawinaadooda garab istaagooda iyo walaaltinimadooda dadka noocaani ah waa dadka keliya kula jira goorta aad faraxsan tahay iyo goorta aad wax haysato oo inta kale kuma doonayaan marka weligaa ha ilaabin dadka kaaga tagay xaaladaha adag iyo waqtiyada adag haddii ay xitaa dib kugu soo noqdaan ha ilaabin dadka noocaasi ah ee aan waxtar u lahayn noloshaada dadkaasi noocaasa hadday kuu soo laabtaan xitaa dan unbay kugu wataan mooye oo isma beddelaan oo waa dad toxic person ah waa dad sumaysan ee weligaa ha iloobin oo iska ilaali dadka noocaasi ah qodobkeena saddexaad waxa uu leeyahay weligaa ha ilaabin kuwa ku dhigay waqtiyada adag weligaa ha ilaabin kuwa dhexda kaa geliyey waqtiyada adag iyo xaaladaha adag maxaa yeelay dadku saddex unbay u qaybsamaan kuwa ku caawiya waqtiyada adag marka aad gesho iyo kuwa kaa tago marka aad xaaladaha adag ku jirto iyo kuwa kugu sababay inaad gesho xaaladaasi adag marka saddexdaas unbay u qaybsamaan dadku marka ha ilaabin weligaa kuwa ku dhigay ama kuwa dhexda kaa istaajiyey xaaladaha adag kuwaani run ahaantii inta badani marka ay xaaladaha adag ku dhexgeliyaan way kaaga tagaan oo way ku baneeyaan garbahaaga ayay ka tagaan balse inta aysan xaaladaha adag ku gelin way kula jiraan oo waa kuwa aad moodo saaxiibo walaalo balse ma ahan sida dhabta ah waa kuwa keliya doonaya inay mushkilad dhexda kaa geliyaan kadibna kaa tegi doono waa kuwa keliya doonaya inay mushkilad dhexda kaa geliyaan kadibna kaaga dhex bixi doona oo aanan ku aqooninba oo ku inkiri doono oo xaaladaha adag kaaga dhex tegi doono marka ka digtoonow dadka noocaas ah oo weligaa ha ilaabin waxaa jirto xikmad ku saabsan aragtida nolosha taasi oo leh marka daad ku yimaado kalluunka quraanjada ayuu cunaa laakiin marka ay biyaha engegaan quraanjada waxay cuntaa kalluunka run ahaantii oraayadan waa oraah cajiib ah oo aan jeclaystay inaan idinla wadaago waxaadna ku fahmi kartaa noocyada ay dadka u qaybsamaan run ahaantii dadka saddexdan noocun bay u qaybsamaan waa kuwa ku caawiya waqtiyada adag iyo kuwa ku geliya xaaladaha adag iyo kuwa kaaga taga waqtiyada adag oo aanan wax caawinaad iyo garab istaag ah kuu samaynaynin marka waxaan rajaynayaa inaad fahamtay saddexdan nooc ee dadka ka mid ah aadna iloobi doonin weligaa waad ku mahadsan tahay saaxiib sida quruxda badan ee aad fiidiyooga u soo daawatay haddii aadan weli inoo laagarayn fiidiyooga inoo laaggaree haddii aadan weli inoogu soo biirin inoogu soo biir oo janaalka inoo subscribe garee waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan inta aan ku kulmi doono muuqaalka xiga waxaan idin leeyahay horumar wacan